كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله وحنا بلا إن شاء الله تعالى المعارضي وشيخ المسجد في هذه أنت إذا طاحدنا إن شاء الله تعالى آخر الموضوع كان وهي وقت جلسنا عيدي إن شاء الله تعالى أحسن لودنا الشيخ محمد. رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، waqtiga waxaan rabaa inta badan inaan idinka idin siiyo in sha allahu tacaala si aad wixii su-aalaha iyo مفتوح ونغض إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، waxaan jeclahay inaan wax yar ka taabto ilaahay subxaanahu wa tacaala amar uuna amray. ilaahayna subxaanahu wa tacaala kownkana uu ku dhisay: in allaha ya'muru bilcadli waalixsaan wayanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray oo addoommadiisa faraa cadaalad. marka kelimadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna faray waa caam wey, noloshoo dhan ayaana ku taagan. ilaahay subxaanahu wa tacaala cagsigeeda oo dulmiga ahna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu xarimay. yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu wallahu laa yuxibu aldaalimiin. dulmigana ilaahay subxaanahu wa tacaala ma jecla, wuuna xaaraantimay. cadaaladana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa jecel yahay, waana amray alle subxaanahu wa tacaala. cadaaladda bani aadamkuna waa jecel yahay, dulmigana dadku waa necab yihiin oo in lagu sameeyo ma jecla. ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaaladda wuxuu faray nafteenna, ilmaheenna, xaasaskeenna, qoyskeenna, dadka aan madaxda u nahay ama aan maamulayno, ummadda oo dhan, bani aadamka oo dhan, hadalka iyo ficilka. haddaan hadlayno inaan cadaalad falno, haddaan xukumayno inaan xukunka cadaalad samayno. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay: in allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. ayadda marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka hadlayo in allaha ya'murukum, ilaahay wuxuu idin farayaa oo idin amrayaa. yaa la amrayaa? ma waxaa la amrayaa dadka muslimiinta madaxda u ah, mase waxaa la amrayaa qof kasta oo muslima oo mu'mina? jawaabtu waxa weeye qof kasta oo mu'mina oo muslima oo kitaabkan iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala rumaysan
ayay aayaddu ku socotaa. muhiimadda waa loo kala weyn yahay, qof walbaa inta dartiisu dadku. laakiin macnahaas marka u horeeya waxay u malayaan xukunka inuu leeyahay keliya dadka xukuma oo ama maxkamad jooga ama ummad iyo dad xukuma oo dowlad xukuma, inay yihiin dadka la amrayo idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl. macnuhuna intaas ma aha. waxa weeye adigadaas muslimka ah noloshaada kama marna inaad wax xukunto. xukunkaasu ama ha fulo ama yuu fulin. dad baad xukumaysaa, hebel waa daalim, hebel waa faasiq, hebel waa nin xun, hebel waa nin fiican, hebel waa daalim. marka aada leedahay markaa waxbaad xukumaysaa, xukunkaasuna ilaahay agtiisa. waxbaad xukuntay, waxaad xukuntay qof inuu yahay daalim, laakiin adiga iyo waxaad ku kala duwan tihiin qofka awoodda leh awooddiisii buu fuliyaa. masalan hebel wuxuu istaahilaa in la dilo, laakiin awood uma lihid inaad disho. wuxuu istaahilaa in la xiro, xukunkiisu aniga agtayda taas weeye, laakiin awood uma lihid. taasun baad ku kala duwan tihiin leh, laakiin macnaheedu maaha inaadan amranayn markaad wax xukumayso inaad si cadaalada u xukunto. macnaha sidaas ballaaran ayay dadkii muslimiinta ahaa u fahmi jireen. waxaa jira xadiis saxiix ah oo caaisha radi allahu tacaala canha laga wariyey. waxaa jiray nin u yimi oo wuxuu ka yimi masar. wuxuu ku yidhi yaa uma almu'miniin, halkaas iyo ciidamadii masar baan ka yimi. waxay ku tiri kayfa kaana amiirukum fii ghazaatikum haadihi, amiirkiinu sidee idin ahaa safartan iyo duulaankan aad qaadeen, sidee buu idinla macaamili jiray? wuxuu yidhi wuxuu ahaa nin wanaagsan, kaayaga sahaydu ka go-do sahay buu siin jiray, kaayaga gaadiidku ka go-o ama gaadiid waaya gaadiid buu u raadin jiray, waana noo dhimrin jiray. waxay tiri inuu walaalkay inuu dilay iima diideyso inaan kuu sheego xadiiskii nebiga calayhi salaatu wassalaam uu ka yiri arrinkaas. wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam allahuma man waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashquq calayh, waman waliya min amri ummatii shay-an farafaqa bihim farfuq bihi. marka caaisha radi allahu canha ninkan walaalkeed dilay, ilen meesha waa la ysku qabsaday masar, marka walaalkeed meeshu ku dhintay. waxay tiri laakiin inaan u cadaalad falo oo xadiiska sida warka aad ka sheegtay ninkaas xadiiska ku soo arooray ee ammaanta ah oo nebigu calayhi salatu wasalaam uu ka sheegay inaan sheegaa iima diideyso. marka cadaalad ayay wax ku xukumaysa. oo qofkii nacayb ay nacbaan lahayd maadaama walaalkeed dilay, intay odhan lahayd waa daalim, waa faajir, waa nin xun, waa nin saasa, markii uu ninkan warbixinta ka bixiyey oo uu yidhi qaabkaasuu noo hogaaminayay, noolana dhaqmayey, oo noo dhimrinayey, oo kii gaadiid siinayey, oo kii sahaydu ka go-do sahay siinayey, ay sheegtay xadiiskii cadaaladda ah. oo ninkaasoo kaleeto ducadii nebiga calayhi salaatu wassalaam xadiiskaasay ku soo aroortay oo uu leeyahay ilaahow qofkii addoonkii xukun ama amar ummadayda in yarba ha noqda ee ka qabta oo dadka u dhimriya oo u naxariista, ilaahu u naxariiso. qofkii dhib ku dhibana ilaahow isagana dhib oo ciriiri geli. marka cadaaladda qof walba ayaa looga baahan yahay, isagaana ku badbaadaya. cadaaladda
markaad samayso adaa badbaadaya. waxaad ka badbaadaysaa marka u horeysa dembi, laanna dulmigu waa dembi weyn, xataa heer ay gaarto kufrigii iyo shirkigii ugu weynaa dembi la galo baa qayb dulmiga ka mida noqday. marka dulmigii ka guda weynba oo shirkigii baaba dulmi qayb ka mida noqday. ina shirka la dulmun cadiim. marka saas ayuu dembi weyn u yahay. waxaad ka badbaadaysaa markaa dembi, haddaad cadaalad samayso dembi baad ka badbaadaysa, dulmigii baad ka badbaadaysa. waxaad kaloo ka badbaadaysaa hami iyo murugo adduunka ah oo aadan cadaawad iyo xiqd iyo xasad cidna u qabin. maxaa cadaaladdu waxay keenaysaa niyadaadu inay degto, qalbigaagu inuu waasac noqdo ayay keenaysaa. waxaad ku badbaadaysaa adduunyada haddaad waxdana waa lagu dulmin oo waa lagu raadsan, marka taasna waad ka badbaadaysaa. walidaalika ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi halaathun munjiyaat, 3 arrimood waxbay badbaadiyaan oo waxa weye adduun iyo aakhiraba way ku badbaadinayaan. adduunkana nolol wanaagsan baad ku helaysaa oo waxaad kaga badbaadaysaa nolol xun, aakhirana cadaabtii ilaahay baad kaga badbaadaysaa. wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam alcadlu fi lgadabi waridaa, taasuu ugu hormariyay cadaalad inaad samayso fi lgadabi waridaa, markaad caraysan tahay iyo markaad raalli tahay labadaba cadaalad samay, hadday qowl tahay iyo hadday ficil tahay. maaha markaad caraysan tahay ama qofka ka caraysan tahay ama dad ka caraysan tahay inaad dulmi ku samayso oo ku xadgudubto. markaad raalli ka tahayna aada u cadaalad samayso, maya, taasu badbaado maaha. adduun iyo aakhiro midna laguma badbaado. waxaa lagu badbaadaa oo munjiyaadka ka mid ah inaad cadaalad samayso, xaalad aad xanaqsan tahay iyo xaalad aad caraysan tahay labadaba. markaa dulmiguna waa cagsigiisa oo waxyaalahaad ku halaagsamayso wey. ficilka keliya ma aha ee qowlka, hadalka aad sheegayso waa xukun. hadalka aad sheegaysaa oo qofka aad ka sheegaysaa waxaa la rabaa inaad ka cadaalad fasho. hadaad rabto hebel wallahi hebel waa saas iyo saas ka tiraahdo, cadaalad bay u baahantay. inaad been ku sheegto, inaad xumaan ku sheegto, inaad wanaag ku sheegto, inaad wax kale ku sheegto, cadaalad baa lagaaga rabaa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waidaa qultum facdiluu, waidaa qultum facdiluu, haddaad hadlaysaan oo hadalba sheegaysaan cadaalad sameeya. qof baa kacaya, reer dhan buu qabsanaya, waa u tuminaya kulligood. cadaalad maaha. ciddii wax kaa gashay ama ciddii dhibaato kugu samaysay keliya baa la rabaa markaas oo kale inaad ka hadasho, ama haddii aad dhibka sheeganayso dhibka ka sheegato. laakiin ma aha dadkao dhan cumuum inaad ku qaado cid wax ku yeeshay iyo cidan wax ku yeelin. maxaa dhacay? ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu le walaa taziru waasiratun wisra ukhra, kale qofkiisa ma qaado. marka cadaalad hadalka xataa markaad oranayso waxay islaamkuna amraya inaan cadaalad samayno oo inaan qofka ku xadgudbin, inaan wuxuu wanaag leeyahay aynaan ka tegin. marka aan xataa sheegayno yaalaha uu ku liito ama uu ku xun yahay. naftaada markaa reerkaaga iyo gurigaaga ayay ka bilaabanaysaa. la rabaa inaad caadil noqoto oo cadaalad samayso. xaaskaaga aada la dhaqmayso, xaasas hadday yihiin xaas ka badan. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ma jiro nin 2 xaas leh oo yamiilu ilaa ixdaahumaa aw lam yacdil baynahumaa, oo aan dhexdooda cadaalad ka samayn ama mid iyaga ka mida u iishay
إلا جاء يوم القيامة وشقه مائل isagoo jeex qallalan yahay buu yowma alqiyaama imanaya. maxaa dhacay jeexu qallalan yahay? cadaaladdu sameyn waaye. shardigii markii hore lala galayna saasuu ahaa oo ilaahay uu ku baneeyey inuu hal xaas ka badan guursan karo. fain khiftum anlaa tacdilu maogtahay laba dhihin hataa nafaqo iyo waxyaalo iyo kulli lama sheegin. cadaalad wax walba, xaggii nafaqada, xaggii jiifka iyo hoyga, wax siinta, waxaasoo dhan waxaa la rabaa inaad ka cadaalad fasho. haddaadan arrimahaas ka cadaalad fali karin iska daa oo ka har haddaad ka cabsanayso. fain khiftum anlaa tacdilu, lianna cadaaladdu waa arrin ilaahay subxaanah wa tacaala u amrayo. waxaa la rabaa xataa ehel iyo qaraabo hadday yihiin oo ay dad kale ishaystaan ama dad kale war isku qabsadeen ama dad kale sheeko isku qabsadeen ama dad kale wax alaab unxun isku qabsadeen, inaad ka cadaalad fasho oo aad cadaaladda xaggeeda xigto, xataa hadday yahay aabbaha, walaalka, ina adeerka, qabiilka, wuxuu yahay. yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqist shuhadaaa lilahi walow calى anfusikum aw alwaalidayni walaqrabiin in yakun ganiyan faallahu awlaa bihima falaa tattabicu lhawaa an tacdiluu. ilaahay subxaana wa tacaala marka wuxuu leeyahay xataa qaraabo ha noqdaan, ehel ha noqdaan, naftaada ha noqoto, insaaf iyo cadaalad baa lagaa rabaa. hadal hadday tahay, xukun hadday tahay. arrimahaas uyay ka hadlayaan, waxay ka hadlayaan dadka muslimiinta ah oo caamka ah. kama hadlayaan nin xaakima keliya, kama hadlayaan nin maaragtay maxkamad jooga, kama hadlayaan oo sharciga xukumaya. waxay ka hadlayaan aniga iyo adiga iyo isaga iyo iyada iyo rag iyo dumar. taasay ka hadlaysaa. oo dadka muslimiinta waxaa la rabaa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala markay akhrinayaan oo ay qaadanayaan inay horta iyagu dhaqangeliyaan. waayo kitaabka dhaqangelintiisa uma taallo dowladaha, uma taallo madaxda, uma taallo xukaamta keliya. qeyb baa khusaysa oo xoog iyo baawar iyo maamul u baahan waa jirtaa, sida xuduudda la ogayo, sida xuquuqda dadka laga qaadayo, waxyaalahaas dhan waxaa sameeya dadka maamul ah. laakiin inta ugu badani waa mid laga rabo individualska, afraadda laga rabo, ashkhaasta laga raba. walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam xataa wuxuu sheegay cadaaladii ilmahaagi dhexdoodii cadaalad baa la rabaa inaad ka samayso. nabiga calayhi salatu wasalaam nin baa u yimi, wuxuu yihi yaa rasuul allahi, wiilkaygan waxaan rabaa inaan xoolo siiyo, u qoro, markhaatina aad ka noqoto. markaa nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu ku yidhi, caruurtaada dhan miyaad siisay? wuxuu yidhi maya. wuxuu yidhi haddaba igala tag, ka qeybgeli maayo, dulmi ka qeybgeli maayo iyo jawr, markhaati ka noqon maye, igala tag. waa waxsiintii ilmihiisa. xaasaskiina waa kan aan waan aragnay. dadkii kaleeto iyo dhaqankoodii hadday yihiinna waan aragnay. marka qofkii noloshiisii, qofka muslimka ah, ayaa waxaa la rabaa inuu noqdo qof caadil ah oo cadaaladda ku dhaqma, naftiisa insaaf ka sameeya, oo aan dadka ku xadgudbin, oo aan nidaamka ku xadgudbin, oo xuquuqda dadka kale aan ku xadgudbin, oo cadaalad ka sameeya. saasuu qofka muslimka la rabaa inuu ka samaysan yahay. markuu qofku suluugaa yeesho, arrinkaas uu u noqdo arrin dabeecad u ah, ayaa ummaddu markaa ay hagaagaysaa. dad caadiliinana hoggaankooda way noqonayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka kariimka ah noogu sheegayaa miisaanka wax lagu beegayo, wax lagu miisaamayo, in cadaalad lagu sameeyo. waaqiimu lwasna bilqisti walaa tukhsiru lmiisaan. miisaanka hagaajiya. ilaahay subxaanahu wa tacaala cirkan iyo dhulkan iyo kownkan miisaan daqiiq ah oo cadaalad ah oo nidaamsan oo aan janjeerin ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sameeyey. idinkana saasaa la ydinka rabaa. walidaalika ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa dhima miisaanka khafiifiya ee aan cadaalad falin oo iyagu wax ka bursadaha dadka waxaanay xaq u lahayn
ayuu ilaahay subxaanahu watacaala hoog inuu u sugnaaday oo yowma alqiyaama cadaab adag ay leeyihiin ugu goodiyey waylun lilmutafifiin aladiina ida اktaaluu calى اnnaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun alaa yadunu ulaa'ika anahum mabcuuhuuna liyowmi cadiim yowma yaquumu اnnaasu lirabi اlcaalamiin. ilaahay subxaanaه wa tacaala markaa miisaanka iyo beega iyo dhaqanka wuxuu leeyahay ku sameeya miisaan daqiiqa oo dhinacna aan u janjeerna siman kula macaamila. waxyaalo badan oo ilaahay subxaanaه wa tacaala qofka muslimka ah uu ka xarimay wuxuu xarimay dulmi inuu ku jiro. dulmi baa ku jira lama rabo marka inuu sameeyo oo wuxuu keenayaa dulmigaas dadka muslimiinta inay dhibaato ka dhex dhacdo, inay isnabcaadaan. haddii dulmi dhaco isnacayb baa dhacaya. masalan ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa waxaa ka mid a inuu amray inaanu qofku walaalkiis gabadha uu doonay ilaa uu ama ka tago ama uu guursado inaanu isagu ka daba tegin oo meeshuu galay la gelin isagoo khidbadii ku jira. de weliba nikaaxsan ogow, laakiin wuu doonay gabadha. marka gabadhaas uu doonay inaad adiga intaad u daba marto xoolo bixiso tiraado ka bax warkiisa maaragtay anigaa meesha soo galay xoolaha adeegsato waa dulmi, ma ogola ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxayna kicinaysaa cadaawad iyo dhibaato iyo xasad iyo nacayb ayay dhalinaysa. saas oo kale walaalkaa beeciisa beec kale kuma dul furi kartid, waa dulmi. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xarima, ma ogola. walaa yabic bacdukum calaa bayci bacd, qaarkiin qaarka kale yuu yani ku dul beecin oo dhihin ninkana 10kaa siina kaale anaa 5kaa siina iga iibso aniga 5kaa siina iga iibso aad ka kaxaysato oo aad adigu maaragtay ilaa uu qofkaas ama iskiis uga tago ama isagu u go-aan gaaro adigu aadan samayn. arrimaha iyo arrimaha la mid ah nabigu calay slat slam wuxuu ku lehy almuslim akhu lmuslim laa yadlimuhu ma dulmiyo walaalkiisa muslimka laa yudlimuhu ee wuu u cadaalad falaa oo wuxuu kula dhaqmaa cadaalad. ilaahay subxaanahu wa tacaala marka koonka hadduu cadaaladda walaalayaal uu ku amray, xataa hadday noqoto cadaaladdu qof aan kula diinahayn waa in loo cadaalad falo. qof aan kula qabiil ahayn ama kula tol ahayn ama kula dad ahayn waa in loo cadaalad falo. markay cadaaladda timaado ma taqaan ma laha kanu waa muslim, kanu waa gaal, kanu waa fog yahay, kanu waa kuu dhow yahay. ma taqaan cadaaladdu. cadaaladdu waxay taqaan xaqu xaggee jira. islaamka saas muslimiintaa saasa la rabaa inu dhaqma. walidaalika ummadda haddii yani cadaaladdu ka tagto oo dulmigu ku bato, ummadaasu ilaahay agtiisa ummad ka dhacday indhaha ilaahay subxana wa tacala bay noqonaysa oon qadarin lahayn haba yaraate waxay doonto ha ahaato. ummadda agteeda aan qofka miskiinka ah xaqiisa isaga oo aan maaragtay dulli ahayn oo dullaysnayn xaqiisa aan qaadanayn oo gaari karin xaqiisa, ummaddaas uma noqoto ummad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu karaameeyo ama uu ilaahay qadariyo. nabigeenu calayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay ina allaha laa yuqadisu ummatan laa ya'khudu adaciifu fiiha xaqahu kayra mutactacin. yani ilaahay subxaana wa tacaala ma tahiro uma qadariyo ummad aan qofka miskiinka ah ee tabarta daran xaqiisa aanu gaari karin isaga oo kayra mutactacin, isagoon yani ku dhibtoon oo ku rafaadin xaqiisa inuu gaari karo. walidaalika dadka muslimiinta ah ee hore markii ummaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimka ah ay arrinkaas fulinayeen ka ummad ahaan iyo ka xukuumad iyo imaaro ahaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka milki siiyey.
حل الشيقاء تاريخ ذي هراء يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخليفة إنه سيف كالونتي أي وكو أركيني يهودية مركا وحيري سيفتن أنا على هنيهو وحيري نك يهودي ها ملهيد سيفت أمير المؤمنين بين ما إذن شيئين لكن سيفت أنا أسكله وايه قاضي إنه كي محكمة كافيري يعني محكمته منذ فجر الإسلام ومستقل وهي كم مدح بنانتها هاي إن كان أميرك وحي حكمتها شرعي إلهي إن كان قاضي ومسلم وحو حكمها شرعي إلهي عدة دونتها النقطة marka hortiisa waxaa soo fariistay qaadi shurayh la oran jiray baa hortiisa waxaa soo fariistay amiirkii muslimiinta dhan madaxda oo ahaa iyo nin yahuudi ah oo dhimmi oo xataa muslim ahayn baa dacwadii isku haysta oo labadooduba soo hor fariisteen halkaa fariisu yiri amiir almu'miniin khasmigaaga dhinac fariiso markuu maxkamadda yimi yiri meel la siman fariiso kadibna aqwaashoodii buu dhageystay تكلم يا أمير المؤمنين يقول سيفتان أنا له محاد عضين هاي ستابر عضينيه خاطئة أو عضينيه مرخاتي وحير ويلكيga حسن ويلكاga ma soconayo markhaati kale ma haysaa maya yahuudigii seefta anaa leh amiir almu'miniin been ma sheegin lahaa seefta aniga iskale waxba kuma lihid baa layidhi aan dhaar ahayn halkaas kaga tag isaga bax cali ibn abi taalib waxba meesha kuma yaalin markaa ninkii yahuudiga ahaa waxay sheegaan qisadii inuu kusoo islaamay oo ay sabab ugu noqotay inuu ku islaamo yidhaahdoba islaamkan haddii ninkii dhammaa oo madaxda ahaa aan sidaana loo ku kala xukumayo walla ilaahay inay diin xaqa tahay waxaa dhacay bani aadamku waxaa ku beeran jacaylka cadaaladda jacaylka waqti dhow hadda waqtiyadaa fog iska dhaaf cusmaaniyiintii hadda waqti dhow soo gaaray suldaan maxamed alfaatix raxmatullaahi calayhi waa ninkii istanbul furtay cusmaaniyiinta saadiintoodii ka mid ahaa suldaankii 7 buu ahaa mise 8 waxaa la yidhaahdaa masjidkan markuu dhisay masjid weyn oo suldaan faatix la yidhaahdo magaalada istanbul ku yaala nin majari ah oo kristaan ah oo yurubtan bari ah ayaa ka shaqeynaya injineerada ka mid ahaa marka amar amiirku suldaanku u bixiyay buu khilaafay manaaradaha iyo columniska lagu sameynayay masaajidka maalin damuu yimi suldaanka masaajidka yaa waxaan sameeyey hebel baa sameeyey gacanta laga gooyo gacantu ka jaray markaasaa ninkii baxay wuxuu u tegay qaadiga maxkamaddu tegay maxkamada qaadiga muslimka ah joogo kadibna wuxuu ku yidhi dee hawshaasaa jirta warqad buu usoo diray amiirka suldaanka uu leeyahay maxkamadda imow suldaanka maxkamaddii buu yimi qadiyaddii buu kala xukumay ninkan maxaa gacanta kaga goysay kan maxaad gacanta kaga goysay amar buu khilaafay waa bas qaadigii haddii uu arrintii rogay wuxuu yidhi gacanta lagaa goynaya oo lagu qisaasaya ma suldaanka dhammaaba gacanta laga goynaya gacanta laga goynaya marka iyadana waxay sheegaan ninkaas inuu kusoo islaamay sidaas oo kale waxaa dhacday waqtigii cabaasiyiinta khaliifadii abu jacfar almansuur wuxuu ahaa cabaasiyiinta ninkii dowladdooda dhidabada u aasay uguna xoog badnaa
waqtigii ugu xoog badnayd dowla cabaasiya nin caalimana wuu ahaa markaa ninka qaadiga wuxuu dhibay kuufa qaadigii marka maalin maalmaha ka mida amiirkii magaalada kuufa gobarnatorihii gabar waxaa jirtay iyadiyo walaalaheed aabbahood dhul uga dhintay dhulkoodu marka uu isku baxsanaa beerahooda meel fiicanna way ku oolayd ninkii amiirka ahaa damac baa ka galay beertan marka wayna kala qaybsanayd gabadha qaybteeda iyo wiilasha qaybtooda wiilashii buu u yeeray wuxuu beertan iga iibiya amiirka waa ka iibiyeen lacag fiican buu siiyey beertii uu ka gatay qaybtooda gabadhii waxay tiri qaybteeda iibin maayo yani waa diiday si kastuu yeela lacag kastuu u gaaray waa diiday inay iibiso dee ninkii amiirka ahaa wuxuu askar buu habeenkii usoo diray beertii xuduudeedii iyo waxyaalihii u dhexeeyey iyo buu yiri isku dhex daadiya wuxuu rabaa inuu ku khasbo inay oo pressure saaro inay iibiso beertii wixii baa xuduudeeda la isku qasay waxaa la beerta hadda waxaan la kala garan maaye kuwana waa la iibsaday iska gad ma gadaya bay tiri waxay aaday markaa subaxdii waxay aaday qaadigii markay aaday xaggee qaadigu jooga gurigiisii bay timi waa la ka wey masaajid ku jiraa baa la fariistaa masjidka qadaaga badanaaba loo fariisan jiray masjidkii bay timi qaadigii bay usoo gashay waxay tiri arrinkaasaa jira waa yahay qaadigii fariisuu yidhi warqad buu qoray askari wuu u diray u dhiibay wuxuu yidhi u geeyay warqadda ha yimaado amiirku majliska looga baahanya maxkamadda u baahan qof baa soo dacweeyey ninkii amiirka ahaa markay u tagtay warqaddii wuxuu soo diray ninkii xaraskiisa ama ilaaladiisa staafkiisa booliiskiisa ninkii madaxda ka ahaa uu soo diray wuxuu yidhi balorad soo eg qaadigu wuxuu iga rabo oo iga doonayo meeshii buu yimi meeshii markuu yimi oo qaadigu u yimi buu yidhi sayid alqaadi waxaan u imi inaan dee amiirkaad warqad usoo dirtay bal waxaad ka rabtay buu iisoo kaa diray markaasuu yidhi adiga miyaa lagu yeeray maya maxaa ku keenay marka adiga askartiibuu ku dalbaday gudaha dhiga buu yiri xabsi gaar uu leeyahay oo maxkamaddu leedahay askar gaar oo ka go-an gudaha iyo dhiga buu yiri ninkan horta waxaan bad aan loo idmin buu galay ninkii waa maqlay wuxuu soo diray wasiirkiisi wasiirka markuu soo diray uu yimi gudaha dhigu yiri isagana odayaal kaluu soo diray gudaha dhigu yiri iyagana dhowr iyo 10 buu gudaha ku ururiyay xabsiga wada dhigay shaqaydin la idin darsan baad galeysaan kashfaa qaadaysaan aakhirkii ninkii wuxuu yiri habeenkii buu intuu yimi xabsigii buu nimankii xabsiga ka sii daayay xoog ku furtay subaxdii waagi markuu bariyay wuxuu ogaaday qaadigii in nimankii xabsiga laga sii daayay okay khalaas way marka bas way shaqada iska casilaya waxaan u tagayaa khaliifadii oo Baghdad oo jooga si aan uga idan qaato inaan shaqada istiqaalada ka jibo laayo qaadiyada waxa ayini jiray yani khaliifada ayini jiray soo buruf gareyn jiray istiqaalada toos waxay ugu xiran tahay khaliifada marka wuxuu yiri istiqaaladeedan dhiibaya waana ka idan awalba iyaga nagu khasbay hawsha inaan qabanno hadeeyan rabin cadaaladdu inay socoto waa in aan ka idan qaato inaan hawshan ka baxo aan istiqaala ka dhiibo dameerkiisii buu rartay awrtiisii buu rartay waa dhaqaaqay ninkii amiirka loo sheegay waxaa la yidhi sheekhi baxi magaaladu kasii socdaa Baghdad buuna ku socdaa ninkii warka hawsha inay khatar tahay ayuu arkay uu ka daba yimi soo noqo hawsha waa maaragtay waa xalinaynaa aan isla xalino aan isla waxayno wuxuu yidhi nimankii xabsiga aad ka sii daysay haddaad rabto inaan soo noqdo horta kulligood xabsiga kusoo celi se ka sii daysay adigu xoogga kaga furatay kusoo celi
adiguna majliska qadaaga imow taasaan kusoo noqonaya shardi soo fuli waaya samcan wadaacan nimankii ha lagu celiyay xabsiga odayaashii wixii la soo ururiyey kii booliska kii wixii xabsiga lagu celiyay qaadiga xabsigiisii baa lagu celiyay sheekh waa soo noqday majliskii qadaagu soo fariistay ninkana waa iskeenay halkuu soo istaagay halkii soo istaagtay markaasuu yidhi nimankan waa marka sii daaya isagaa fasaxay marka nimankaa kale sii daayo marka hadduu yimi ninkii qadiyadda lahaa gabadhan dhulkeeda madaa kharibay madaa saan yeelay haa anaa yeelay sidiisii ma ku celinaysaa haa sidiisii baan ku celinayaa bas xukunka waxaan ku xukumay sidees inuu ugu celiyo dhulkeedii sidaas inuu ugu celiyo mar dambena aan la taaban yaa gabadhii ducaynaysa meesha ka baxday marka waxaan ka wadnaa heer dowladeedna saasay ahayd dadka muslimiinta ah suluugooda shakhsiga ah qofka ahna sidaasuu qof walbii u fahamsanaa inuu cadaaladda ku socdo ilaahayna subxaanahu watacaala ummadaha muslimiinta ah ama dadkooda afraadda ah haddii dulmigu ku bato cadaaladduna ku yaraato noloshooda cadaab bay noqonaysaa maantana waxaan u malaynayaa dadka muslimiinta ah inay arkaan in cadaaladdii ka wareegtay mujtamacaadkooda inta aanay ka wareegin nimanka xukaamta ah ee la sheegaya la leeyahay dulmi bay xukmiyaan waxaa ka daran dulmiga inagu aynu xukunno oo ninku xaaskiisa caruurtiisa xaasaskiisa qaraabadiisa dadka walaalihiisa oo muslimiinta inta uu dulmi ku sameeyo oo cadaalad darro ku sameeyo baa mararka qaarkood ka daran inta nimanka xukaamta ah ay ku sameeyaan shucuubtooda haddaan marka taas xaggeenna aynaan iska sixin taasu ma saxmayso wallahu tacala aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbi gurub aabay dhawaay iska fiiri waxaa dhacday marka macallinkii markii meeshii lasoo fadhiistay gabdhihii hore usii fadhiya dhowr bay sii tageen aftin ma ogtahay aftin school waay waxyaabahan habeenkii la barta wey markaan meeshii farfariisanay annagoo 6 wiil ah macallinkii waxbuu sharxay kadib wuxuu yidhi waxaan gelaynaa qolka oo afqaamkeela saa lagu sameeyo arday walba oo cusub arday hore u joogay haddaba istaago macnaheedu waa maxay wiil kasta gabadha haddaba istaago